sabarka aad sabraysid waa inuu noqdaa mid ilaahay dartiis aad ku sabraysid waliba adigoo aarsan karo laakiin sabarkaaga uu noqon. Alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaantiin waxaan idin leeyahay welcome to my YouTube channel waa gabadhiina Nasra oo muuqaal kale cusub idin wado. maalin walba waxaad aragtaa haddii ay tahay TikTok, YouTube, Snapchat, Instagram, Facebook dad ooynaayo oo dhahay dhibaataan ugu dhacday dumarkaba ha u badnaadaane. dadkaas hal eray waxaa jira mar walba ay dhahaan waa sabraynay dhibkaan waxaan ku dhahay u sabray sabarkayga waxaan ku dhahay dhibkaana soo gaaray laakiin waxa isweydiiyay sabarka ay sabraan waa sabar nuucee ah. sabarka ay sabraan haddooba gaarsiiyay ilaa ay maaragtay caafimaad darro intay ku dhacdo ay public intay imaadaan ay ka ooyaan. fikirkayga aniga islaamic yani diinta markii loo laabto ka sabar lama dhihi karo laakiin maanta waxaan rabaa inaan laba talo ku siiyo. labadaas talo haddii aad ku dhaqantid aan aaminsanahay inaad ka maarmi doontid inaad social media imaatid noqon doontid ama gabar ahaaw ama wiil ahaaw qof maskaxdiisa isku filan tahay oo noloshiisa. labadan tale maanta ku siinaayo haddii aad isticmaashid oo aad ku dhaqantid waxaan ku ballan qaadayaa noloshaada inaad u baahnaan doonin inaad inta social media imaatid aad ka ooysid ma u baahnaan doontid insha Allah. wax inta social media ku keenaan oo ka oohisiinayane ma mudne inaad u sabartid waa aniga fikirkayga taas. laakiin sabarka u laabano inta badan dadku waxa ku celceliyaan waa sabreyne dhibaatada ugu dhacday hooyooyin ooynaaya ilmaana lagu dayacay dhibaatooyin badan ay jiraan waxbaana laga duubay isku soo duub dhibaato waa dhibaato laakiin waxaan rabaa aniga erayga sabarka inaan dul istaago. talada koowaad ee aan ku siinayo marka aad sabraysid waxa waaye koow horta ilaahay subxaanahu wa tacaala marka sabraysid waa inaad hor istaagtaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala muxuu quraankiisu ku yiri markuu sabarka ka hadlaayay ma taqaana taas haddii aad taqaanase ma use garaysaa ma isticmaashaa marka dhibaato kugu dhacdo aad leedahay waa sabray horta quraanka ma isticmaashaa sharciyada ilaahay subxaanahu wa tacaala oo sabarka ka soo dejiyay ma isticmaashaa. talada koowaad aan ku siinayo waxa waaye isticmaal quraanka aayadaha especially sabarka ka hadlaayo aayado badan sabarka ka hadlaayo. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu dhahay sabarku wuxuu dhahay dadka bil aadanka sabar macnaha lagu waani sabar lagu waani laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala aayado badan jiro aayad waxa jirto quraan oo ilaahay uu ku yiri sabarka qofku wuxuu kugu sameeyay dhibaatada haddii qofku uu kugu sameeyay mid lamid oo ku sameyn kartaa laakiin maxaa la dawaa subxaanahu wa tacaala ku sabro jecel laakiin haddii aad sabri waysid oo dhibaatadan ay ka tan badan tahay dhibaatadii lagu geys mid lamid waa geysan kartaa. daas waa qofka markuu qof dilo oo maaragtay ama diyo ama qofka in la dilaa hadduu qofka gacan ka gooyo gacan ka gooyay hadduu ilka rido ilaa ka riday laakiin maxaa ka qayr badan ilaahay uu yiri ilaahay quraanka wuxuu ku yiri wajazaa'u ziyatun ziyaa faman afa wa aslaha fajna la yuhibbu dhalimin. xumaanta abaalkeeda waa mid macnaha abaalmarin haddii aad ka aasanaysid dambi ma kuligid laakiin xumaantii mid lamida waaye laakiin ilaahay wuxuu daba mariyay faman afa wa aslaha fajruhu inna la yuhibbu dhalimin. يعني قفك إسكع عفيو أياك أجر بدن وراهاي إنا إسكع عفيس أياكو أجر بدن أي آيات بدن أو قرآنك أو صبرك كهلا يلو يجرام لكن قرآنك أنت سو آيات ممكن يكون سو أرورين أو أديك إبعاد ده ممكن يكون عادي أنت بلاتفورم على إما تقل وينيسيت ما هو حقيقة على عسينة إنا المركات شرعي الإسلام كمارة نلوتو دجاء استعماشي ما هذا استعمالي marka koobaad talada aan ku siinaa waxa waaye sharciga isticmaal islaamka quraanka isticmaal aayadaha sabarka hadla isticmaal naftana ha kalifin quraanka laftirkiisa nafta illa kalifo diinta ma ogolo. marka sabarka qaar oo maaragtay oo dhibaatooyinka maskaxiin iyo ku geysanayo diinta islaamka xataa ma ogolo. marka waxaysan diinta islaamka in ogoleena intaad qaadatid oo sharciga islaamka ka booday hadhow waxa rabtaa noloshaada inay toosto
haddii aad rabto number 1 sabarka aad sheegaysa inaad ka dhabayso quraanka isticmaal sharcigu ilaahay soo dejiyay isticmaal ha ka boodin quraanka iyo sharcigu ilaahay soo dejiyay markaad ka boodid consequence-keeda waxa waaye in aanta maaragtay maskaxiina isugu dhex yaacdid aad platformka social media imaataa ku oysid taas waa inaad ogaataa talada koowaad aan ku siinayo waxa waaye markaad sabraysid quraanka حتى هدي هذا أقولين أو هذا حافظ القرآن هذا أهين وجوجل جري كرتا مانتا والرادي كرتا محاضرين بدنا وحاجر الصبر كهلا في صومالي كهلا في إنجليز كهلا في عربي أفضل بقى تقاليد محاضرة كهلا يسو أهلي كرتا سبيشل ما دام دنا صومالي أو كهلويو ويكبوا حان مرك قرآنك كددال قرآنك حتى يلسنين وحكستو أو أثربتي أما تلاقوا البقى قاديسيت صبرك بس ما أهان قرآنك الشرعي إسلامك هكبودين قبل أمويلو شرعي إسلامك هكبودين ثلاثة سانكوسينا ونمبر 1 ثلاثة لبات جوجي صبرك الدرتو دا أسبريسي معني إذا محان كوضا حلقة يا مانتي ردباتو هايستو بروبلم كاي كوهايسي عيريغا أكون ولد إناد موارد كا أما ولالها أما صاحبة كوغو دو ألا وداكتو marka koobaad waxa ogaataa marka la wadaagtid ayaga talo way ku siin karaan aniga la wadaagin kuma dhahay waayo qofka bini'aadanka inuu problemkiisa ka hadlo waa qayb caafimaadka kamid ah taas ani 100% waan sibood gareynaya waa ku raacsanahay laakiin talooyinka lagu siiyo oo lagu leeyahay ku sabar noloshan ku sii jir haday nolosh adiga ay ku anficeynin irida ka bixin daaqada ka bood hadii kale hadhowti maxay oo consequence noqonaya inaad maxaan ku dhahay maskaxiina isku dhex yaacdid platformka imaatid ka obisid inta badan yani daraasooyin badan oo la sameeyo waxa lagu ogaaday qofku wuxuu asiga naftiisa oo u qaaday inta badan uu ka heel garay karaa laakiin inta badan go'aamada qaar nolosha waxa ku dhahalista ah ilaahu may noqdaan dadka ugu dhow dartooda u sameeyay way ka dhibaatooyin badan yihiin way adag tahay inuu qofka ka heel garayo marka maanta waxa laga yaabaa qalad sameeyso ina qaladkaaga asaxato laakiin dad kale ay ka sameeyeen qaladkii marba waxa laga yaabaa xataa dadkaas xataa ina cadaab u qaado ina marba wax gocatid taasna marka wax badan uga badbaadaysa marka jooji waxyaabaha dadka kale dartooda u sameeyso oo hadhowna adiga caafimaad ahaan in naftaada kugu soo noqon doono nolosha hadii ay ku anfacayso waa isleeda inaba waa toosi kartaa isku day inaad toosisid hadii ku anfici maahno daaqada ka bood saani ku sheegay sabarka aad sabraysid waa inuu noqdaa mid ilaahay dartiis aad ku sabraysid waliba adigoo aarsan karo laakiin sabarkaaga uu noqonin hooyada ay tiri walaashay ay tiri saaxiibtay ay tiri ka sabar lama dhaho